بسم الله الرحمن الرحيم. انت مركاسي GitHub ka usii gudbin waxaan arkaynaa markaasi wax yar ay arkaynaa oo magaca git ignore ay arkaynaa markaasi git ignore kan markaasi muxuu qabanayaa. Okay, markii projectiyada aad sameynaysid ama website qaar markaas sameynaysid waxaa jirta waxyaabo oo sensitive information ah markaasi ama keys ay iska jiro adiga ku gaar ah oo aad rabin dadka kale inaad la share gareysid. Tusaale ahaan waxaa jiro faylal qaar oo qofka markaas uu bixiyo .env ama uu dhaho env markaas wuxuu ku qoraa markaasi okay key kadib value wax isoo qoraa markaasi waxyaabahan uu ku qoraa markaas waxa laga yaabaa password inay yihiin markaasi password iyo waxyaabo markaasi la xiriira inay yihiin macquul markaasi waxyaabahan markaasi haddii aad fiirsato wuxuu leeyahay waa untracked markaas lama macnaha lama track gareey kareta laakiin haddii aan fiirino markaasi git status keen haddii aan fiirino xagga ayuu ku jiraa hadhow markii adiga aad mararka qaar waxa gacanta kaaga dhacayso git aadka gacanta kaaga dhacayso soo marka dadkii kale way arkayaan oo markii aad GitHub ka aad geysid dadka kale ay arkayaan balse marka si aysan u dhicin waxyaabahaas waxaa jira wax lagu magacaabo markaasi git ignore filekaas markaas wuxuu ka caawinayaa faylasha qaar in markaasi aad ignore gareey kartid oo markaasi si macnaha gacanta aysan kaaga dhicin oo dad kale markaas u arkin xogtaas waxaa ku soo daraysaa file kale markaas lagu magacaabo dhibic ayaa ka bilaabaysaa waxaa u bixinaysaa markaasi xalayna markaasi git ignore ayaa leedahay git ignore ayaa u bixinaysaa inta ayaa leedahay saacadtan wuxuu qaadanaa icon markaas kala midabkaas ay qaadanaa oo git ignore kaas ah inta waxaa ku sheegay markaasi fileka aad rabtid inaad cancel oo aad ka reebtid meeshaasi waxaan leenahay waxaa ka mid ah filekaasi wax lagu magacaabo .env save markaan dhaw meesha fiyaada maxaa ku qoran waxaa ku qoran markaas tracked ama us u taagan oo status markaa fiirino qaabkaas ay usoo muuqanaa balse save markaan dhaho waxaa dhacayo midabkii wuxuu noqonayaa wax yar oo khafiif ayuu noqonayaa markaasi oo ah in markaasi uusan ku jirin kuwan oo kaleeta yuud uu ka baxay sababtoo ah faylkan macnaheedu waxay tahay kuma jiro faylasha tracking lagu sameynayo markaasi hadda markaan git status markaa ku celiyo uu ka baxay meeshaas ma jeedaa env uu ka baxay balse meesha maxaa soo galay git ignore oo faylka aan sameynay kan waa muhiim kan waa qasab markaasi kan waa ku dareena inaan ku darno waa iska caadi wax muhiimna uma qorno balse kan waxaa ku qoran faylasha aan macnaha anaga ama rules anaga sameynay meesha aan ugu qoran faylasha aan rabin markaasi in aan ku darno repository kan sigan waa ku darno waxaa leenahay markaasi git add ayaa leenahay kadib dot ayaa leenahay dhammaan ku dar dot haddii aan dhaho dhammaan markaan macnaheeda kan kuma daray sababtoo dhammaan markaan dhaho dhammaan laakiin kan kuma daray wuxuu aqrinaa markaasi kan ayuu aqrinaa .env gaas wuxuu aqrinaa ignore kaas .env ga faylkaas ayuu ka reebay inta kale ayuu ku darayaa okay kan markaasi waa sameynay haddii aan fiirino markaasi git statuskiisa saaragtaan bah midkan ayuu wuxuu taagan staging ayuu taagan yahay git ignore ka staging ayuu taagan yahay isagana waxaa u bixinaa markaasi commit yar waxaa leenahay git commit -m okay isna waxaa leenahay markaas adding okay git ignore okay inta ay leenahay markaasi isagana waxaan ku darnay markaasi repository-gan caadi ayaan ku darnay haddii aan fiirino markaasi git log haddii aan dhahno waxaana soo baxay logska markaasi kala duwan meeshaas noo soo muuqanaya okay kor u qaad waxaana soo muuqday marka saddexdii ugu horeeyay midkii koowaad oo ahay waa kaasi midkii labaad oo updating ka ahay iyo midkii saddexaad oo git ignore ka markaasi anaga hadda aan ku soo darnay intaba okay intaas markii aan sameyno waxaan rabnaa markaasi in anaga aan qaadno oo markaasi GitHub keeni aan ku aan geyn ayaan u qasbanay markaasi sidee taa u sameynaynaa okay maadaama laba topic ay kala noqonayaan git ignore kana gitkan oo la xiriiro GitHubna uu gooni u yahay inta ayaan ku joojinaya qaybtan video iska kooban 4 daqiiqo ah qaybta xigta markaasi wax ka bilaab markaasi GitHubka ayaan ka bilaabay insha Allah.